Assalaamu calaykum. Waxaana soo gaadhay qaylo cusub oo ka imanaysa gacanka cadmeed baabalmandab iyo badweynta Hindiya oo ay ka dilaacday burcadbadeed. Arrintaas ayaa aad u xiiso gelisay naftaydii. Waxaan raadiyay in aan war ka keeno, waayo waxaan ogahay inay ka mid tahay ciyaar cusub oo la rabo in ciidamo lagu keeno badda cas. Si aan u soo xaqiijiyo ayaan tigidh degdeg ah u goostay Rome, gaar ahaan Vatican City. halkaa waxaa deganaa rag bixiya talooyinka amniga ee dunida ugu khatarsan. Xogaha xasaasiga ahna iyaga ayaa laga helaa. Vatican City dad ayaa u haystay inay tahay magaalo diimeed, balse waa meel lagu go'aamiyo siyaasadda caalamka. Kaydka dahabka ugu badan adduunyada waxa uu yaalaa halkaas. Waxaa la kulmay qolo aanu saaxiibo dhownahay oo la dhaahdo StarTech, oo ay macmiil yihiin shirkadaha amniga ka shaqeeya ee ay ka mid yihiin Blackwater, Streisand, B10 Bullet iyo qaar kale oo badan. Tom, oo ah khabiirka badaha u qaabilsan shirkadda, ayaa igula ballamay maqaaxi bun oo la dhaahdo Italia 360. Waxaan weydiiyey Tom waxa soo galay badii casay. Uu dhoola cadeeyay kadibna si degan ayuu u yidhi arrimo amni maaha hawshaasi ee waa shaqooyinkii Club of Rome ay ku hawlan jireen. Waxa uu sii raaciyay maxaad aniga iga soo raadisay. Waxaan ku yidhi waxaan u haystay hawlgalo amni. Cabaar ayaan wada fadhinay, waana ka soo tegay anigoo xog fiican ka soo helay. Waan isaga soo dhoofay Talyaanigii, waxaan hawlo shaqo u tegay Kuala Lumpur, Malaysia. Waxaan la kulmay James Sam oo ahaa la taliye dhaqaale oo iga caawinayay sidii aan lacag maalgashi ah uga heli lahaa HSBC Bank. Lacagtan waxa ay la doonaya ururkayaga oo raba inay soo geliyaan ganacsi. Aan raali kama ihi ee iyaga baan ku qancinaya. Page ayaa habeenkii dambe wada xidhiidhnay oo iga wareystay inaan qaatay lacagtii ay qorsheeyeen. Waxaan weydiiyay arrimaha ka cusboonaaday badda cas. Page waxa uu igu yiri arrimahaasi way ka sareeyaan, kamana hadli karo. halkaas ayaan ku dhaafay kama sahadhin ilaa aan ogaaday ciyaarta meesha ka socotay iyo cidda wada. Internetka ayaan baadhitaan ka bilaabay. Markiiba waxay soo jiitay Muammar al-Qaddafi oo UN-teeda horteeda ka cadaynayay in aanay jirin burcadbadeed ee duulaan lagu yahay kheyraadka Soomaalida. dooda Qaddafi waa mid suuragal ah, waana nin wax badan ka og dunida qarsoon iyo qaabka la isku mu'aamaradeeyo. Hawshuse waa duulaan ka weyn kheyraadka. waxaan doonay inaan wax ka sii ogaado sababta ciidamada intaa leega weliba heega sare ku jira ay u joogaan badda. Judhiiba waxaa muuqatay in aad loo buunbuuniyay qadiyadda burcadbadeedka. waxaa wararka ka saari waayey saxaafadaha caalamka. waxaa laga qoray in ka badan 100 buug oo ay qoreen qoraayada ugu saamaynta badnaa. tiro ma laha buugta laga qoray. UN-ta ayaa qaraar ka soo saartay in ciidamo la geyn karo. waxaasay soo jiitay oo xiise weyn lahayd arrin ka timid barre ku takhasusay luuqadaha oo la dhaahdo Tommy ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray inta uu soo qaatay sawir markab dagaalo oo weyn iyo laasheer oo rag Soomaali ahay AK47 ay la saaran yihiin. ayuu yiri waxaan difaacayaa adeegsiga luuqadda ee lagu xadgudbayo keeba burcadbadeed ah markabka weyn mise laashka yar. dunidan aynu maanta nool lahay wixii la doonaya dadka la aaminsiinayaa kama hadhin baaritaankii. waxaan helay General Batonov oo ka tirsan sirdoonka dibadda ee Ruushka ayaa warbixin uu siiyay madaxdiisa oo ay daabacday mareegta wakiilkiis. warbixintaas waxaa lagu sheegay in ay halkaas ka soo baxayso cadow dunida khatar ku ah, taasna ay tahay waxa laga hortegayo. waa maxay cadowga la sheegaya ee dunida ka soo baxaya? yaab malaha waa cadow mala awaal ah oo dana kale ka dambeeyaan. hadal tiriduna ma yara, waayo dadyo badan ayaa xiiseynayay inay ogaadaan sababta ciidanka xooggaas leh ay u joogaan badda yar oo badda cas oo kale ah oo ay ku meersan yihiin dawlado awood ahaan burburay sida Yemen iyo Soomaalida, gaar ahaan Somaliland. jasiiradda Socotra ayaa baadhitaan ka socda. qolo ayaad ka odhanaysa waa istaraatiiji, qolo kale waxay ka odhanayaan cadaab ayaa meesha ka soo baxaysa oo waxaa jira dilaacyo. mararka qaar ayaa warar badan oo been abuur ah la sameeyaa si loo lumiyo ujeedada dhabta ah. waxay tahayba waqtiga ayaa qarin doonin. 1980 ciidamada Faransiiska ayaa arkay mawjad xoog badan oo badda hoosteeda ka bilaabantay. kadib markay muddo baadhis ku wadeen ay noqotay wax ka baxsan awoodooda cilmi. kadib waxay u qayshadeen ciidamada badda ee Mareykanka. isna baadhitaankii ayuu ku bilaabay dilaaca badda hoosteeda ka socda ee Faransiiska uu bixiyay Portuguese. waxay leeyihiin waa albaab ka furmay gunta hoose ee badda. arrintaas ayaa ka qaraweynaatay Mareykanka qudhiisa. markaas ayuu ka soo qayb geliyay Yurub iyo Ruushka. ruushkuna waxa uu sii yeedhay Shiinaha iyo Japan oo baadhitaanka wax ka bilaabay. hadda hawlgalka midowga Yurub waxa uu sameeyay ciidan badeed oo gaar ah oo ay ugu yeedheen Atlanta Operation. macadda sababta ay midowga Yurub ku doorteen magaca Atlanta laga yaabaa inay ula jeedaan wadamada ku teedsan badweynta Atlantiga. waxaase jirta sheekooyin laga soo xigto magaalo dahab ka samaysnayd oo ku qarsoontay badda, lana rumaysan yahay in ay mar soo bixi doonto oo loo yaqaano The Lost Atlantis. Atlantis-tii luntay. Atlantis dhanka dunida Islaamka marka laga soo akhriyo waxaa loo yaqaan Iram oo quraanka ugu jirta Iramadatil Cimaad. cimaad oo ahayd magaalo reer Caad oo ay u dhisay boqorkii reer Caad ee la oran jiray Shaasi Imaamudiinkii labaad. waxaan dhulka ka dhisayaa ayuu yiri jannadii 8aad. markaas ayuu dahab iyo fidda ka dhisay magaalo aad u qurux badan. waxayna ku taal meel u dhaxaysa Maydh iyo Cadan oo waxaa ku sii hakan jiray ganacsiga fooxa, beeyada iyo dahabka ka yimaada Oofir
ofir oo la tuunsan yahay in ay tahay Zanaag. Sidii aan baaritaanada u xiiseynayay ayaa la igu soo casuumay shirkii World Economic ee ka dhacay magaalada Davos ee Switzerland. Shirka inta badan waxaa yimaada madaxda caalamka waxaana lagaga hadlaa dhaqaalaha caalamka iyo duruufaha ku gadaaman. Waxaase shirka socda shirar doceedyo lagaga hadlayo arrimo badan oo aan la rabin in saxaafaddu ogaato ama ay u soo baxdo dibadda. Waxaan fadhiistay miis lagu gorfeynaya arrin xasaasi ah. Waxaa miiska la soo dhigay in ay jiraan dad adduunka ku nool oo aan qaadan ribada. Sidee bay u dhacday in nidaamkeenu ka hirgeli waayo dhulkaas ay yidhaahdeen? dadkaas culayska ay nagu hayaan ma qaadi karno waayo waa dad samada laga aqbalo waa in aynu kala dagaalano ducada laga aqbalayo oo aynu ribada cunsiinaa waxa la isla afkartay in loo soo wareego miiska sideedaad ayaanu fiidkii fadhiisanay waxaanu nagu soo biiray koox cusub oo ka socota round table waxay farta ugu yeedheen World Bank iyo IMF xubno matalayay concept notes la sii qoray ayaa gacanta laga saaray waxaana la amray in lacag badan la geliyo dhulkaas inta ka horeysa 2012 waxay ku jawaabeen in dhaqaalaha adduunku khalkhalsan yahay laakiin gobolkaas Geeska Afrika ay tahay battle ground la isku waajihi doono Shiinaha iyo xulafadiisa kulankaas kadib waxaan u dhoofay Djibouti oo la iga soo diyaariyay gabadh aan ku guursado gabadha waxa ay sii diyaariyay kooxaanu qaraabanahay jacaylkaas iyo guurkaas cabsi baa ku lamaanay oo kuma niyad sameyn waayo ma ahayn mid ku yimid dooqayga iyo doorashadayda waxaa ururku dhexdiisa caado ka ah in la isku dhiso xubnaha ka tirsan Dagmaro ha yeeshee gabadhan ima cadayn in ay ka mid tahay shaki ayaa biyo dhigay laabtayda oo noloshaydii guur ee farxadda ahaan lahayd ayaa isku rogtay xiriiri waxaan bilaabay inaan xiriiryadeeda ka qarsado xaaskayga markaan ka soo baxay bishii dahabiga ahayd ee guurka ugu cajiibsan ayaan dalkii ku noqday waxaan arkay xildhibaanadii baarlamaanka oo ku doodaya waa la keeni karaa waa ribade iyo lama keeni karo goortaas ayaan dareemay in dhagartii la soo dhigay ay si xawli ah u shaqaynayso waxaa la isku hayaa waa nidaamka dhaqaale ee ribada ku dhisan halka dadku yihiin muslim ay diintooda xaaraantimaysay ganacsiga ribada ku sal leh weerar hor leh ayaa ka bilaabmay wadaadada ayaa khudbadihii jimcaha ku duray ribada isku daygaas koowaad ma guulaysan laakiin hirgelinta nidaamka ribadu waa mid cid kale rabto oo ay dabada ka riixayso waxaan dhex galay ra'yiga dadka waxay ka qabaan qolooyin badani way diidan yihiin qaar dayaysan ayaa odhanaya wadaadka horumarkeena ayuu ka soo horjeedaa wadaad horumarkaa hortaagan ma jire cadaab iyo naar ayuu kaaga digayaa dunida islaamka nidaamka dhaqaale ribadu waa uu ku faafay si weyna waa uu aafeeyay bulshadii waana waxa burburin kara iimaankooda bilo kooban dabadeedna waxaa gudaha Soomaalida soo galay lacago fara badan oo ay soo daayeen banka adduunka xadiga lacagtaas ayaa looga gol leeyahay in Soomaalida oo aan jeclayn maalka la jeclaysiiyo si ay hadhow si fudud ugu saxeexaan kheyraadka badan ee ku duugan dhulkooda kooxo aan badnayn ayaanu samaynay oo qurbo joog u badan kuwaasoo la siiyay lacago ay ku bilaabaan ganacsiyo yaryar ganacsiyadan yaryar waa kuwo dhaqan oo la rabo in bulshada u qaabeeyaan si ka duwan sida ay u nool yihiin waxaanu ganacsiyada u naqaanaa agent of change waana bridge-ka dhaqan ee u dhaxeeya galbeed iyo waqooyi inta badan ganacsiyada la maalgeliyo shuruudaha lagu xulanayo waxaa ka mid ah in ay ugu magac daraan meheradaha reer galbeedka magacyada Carabiga iyo Soomaaligana lama soo dhaweeyo lamana aqbalo ereyada al meherada ay ugu horeyso ilgooniyaha ayaa lagu eegi jiray degdeg ayaan ugu baxay magaalada Nairobi oo la igu casuumay shir ka hadlaya aayaha qarinimada Soomaalida kaas baana ahamiyadda siiyay sidii ayaan ku ambabaxay shirkii oo ahaa mid heerkiisu sareeyay waxaa fadhiyay khubaro badan waliba nooca bulshooyinka qaabeeya luqadda Ingiriiska waxaa loo yaqaanaa social engineers Soomaalida iyo dunida muslimka way ku yiryihiin dad sidan u diyaarsan ama waxaa la oran karaa maba jiraan qof sidan u hawlgali kara qof kasta oo ka tirsan xubnaha social engineers waxaa la baray aqoonta bulshada dhaqaalaha siyaasadda taariikhda cilmu nafsiga waa dad muddo badan lagu soo tabcay oo ka soo warrami kara qaybaha kala duwan ee cilmiga iyo falka la xiriira qoladaas waxay yiraahdaan Soomaalida talada qura ee lagu kala qaybin kara laguna daciifin karaa waa qabiilka oo si u ah awood u ilaalisa nasabkooda oo maanta dunida ka tirtirmay ayaana loo adeegsan karaa si xun si ay hadhow u nacaan qabiilka jiritaankiisa waa dhagax laba shimbirood lagu wada dilayo mid lagu qaybinayo iyo mid dambe oo ah in isirkooda iyo nasabkooda lagu burburiyo marka la nacsiyo si fudud ayaa looga dhaqaajin karaa marka laga dhaqaajiyana sideena ay noqonayaan bilaa nasab dad bilaa nasab ahina ma laha jiritaan sugan cid kasta oo aan lahayn jiritaan suganna si fudud ayaa lagu dhaqan doorin karaa taas baa keentay in nidaamka cusub ee federaalka lagu dhiso qabiil tan oo looga dan leeyahay